weli waxaa socda dagaal dhanka hawada ah oo u dhexeeya iiraan iyo israa'iil iiraan waxa ay gantaalo ku garaacaysaa magaalooyin ka mida israa'iil halka israa'iil ay iyaduna dhankeeda duqaymo ka geysanayso magaalada tixraan iyo magaalooyin kale oo ka tirsan dalkaasi iiraan waxaa soo baxday cabsi laga qabo in dagaalkan uu ku fido gobolka bariga dhexe haddaba wararkii ugu dambeeya dagaalka iyo dagaal dhanka afka oo ka dhex qarxay hogaamiyaha ruuxiga iiraan iyo weliba madaxweynaha maraykanka donald trump waxaa inoo haya liibaan cabdi warsame oo imika stuudiyaha la fadhiya liibaan maxaa ugu dambeeyey axmedow sidaa sheegtaba dagaalkii weli ma joogsan maalintii lixaad ayuu galay labada dhinacbana waxay isweydaarsanayaan madaaficda ridada dheer iyo weliba duqeymaha dhanka diyaaradaha la wado iyo kuwa iswadaba waxaa la sheegayaa in khasaaro badan uu soo gaaray inkastoo ay adag tahay in si rasmiga loo sheego inta la kala gaaray marka la eego labada dhinac waxay iska duqeeyeen goobo istaraatiijiya sida meelaha shidaalka lagu sifeeyo iyo weliba warshado iyo sidoo kaleeto xarumo lagu bacrimiyo hubka nucleerka ama lagu talagalay dalka iiraan uu leeyahay oo kaleeto waxaa sidoo kale halkaa ku geeriyooday dad saynis yahano iyo saraakiil ciidan oo kala duwan labada dhinac waxay sheeganayaan khasaaruhu inuu intooda soo gaaray uu xadidan yahay laakiin wararka bbcdu hesho waxay sheegayaan marka laga soo tago labada dhinacba in ay jiraan dhimasho iyo dhaawacba axmedow warka marka la eego dagaalka labada dhinac waxaa laga cabsi qabaa in uu u xoogsiibto dagaal saf ballaaran ah oo ay soo galaan quwado shisheeye madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa waxaan la soconaa inuu ka dhawaajiyey in maraykanku uu ka fekerayo inuu tallaabo ka qaado iiraan arrintaasi waxay keentay dagaal dhanka afka oo dhex maray hogaamiyaha ruuxiga ah ee iiraan khomeyni iyo weliba donald trump ayaa arrinta dagaalka bilaabay oo talaadadii waxa uu sheegay in ay og yihiin halka uu ku dhuumaalaysanayo khomeyni islamarkaasina aysan hadda doonayn inay dilaan laakiin xilli kasto uu yahay bartilmaameed aad u fudud in ay ka takhallusaan waxa uu sheegay hadda inuu xilligan ay ka fikerayaan bal in ay usii dulqaataan bal inay isdhiibaan iyo in kaleeto wuxuuse sheegay dulqaadkoodu inuu sii yaraanayo wuxuu sheegay madaxweyne donald trump oo bartiisa social media wax ku qoraayey oo aan la og yahay inuu yahay madaxweyne afluula tale oo inta badan waxaa la gemban in ay tahay in si shuruud la-aanah iiraan ay isku dhiibto hadalkaasi waxaa ka xanaaqay hogaamiyaha ruuxiga ee iiraan wuxuuna asna barta ekiska ku soo qoray arbacadii hadallo jees u muuqdo inta badan islamarkaana wuxuu uga digay maraykanku hadduu dagaalkaasi faraha la soo galo 100% inuu hubo inuu ku gubanayo oo ku guuldaraysanayo wuxuu sidoo kale sheegay inaysan wax caqli ahayn in lagu fikiro qaranka iiraan buu yidhi isdhiib wax loo yaqaano wuxuu sheegay dadka iiraan inay aad u niyad adag yihiin islamarkaana ay yihiin dad isku kalsoon oo marnamo aan laga yaabin in ay isku dhiibaan hadalladaasi ku sheegay kuwa daandaansi ah oo aan loo meeldayin khomeyni oo sii hadlayay wuxuu ku qoslay soo jeedinta ah inay dili karaan waxaan war sheegay iiraan in aysan waxba walwala ka qabin qaranka iiraanna wuxuu sheegay inaysan haba yaraatay wax argagaxa aysan intaas ku yeeranaynin donald trump oo hadlay wuxuu sheegay in haddii ay doonaan iiraan in ay tallaabo ka qaadaan ay taasi u fududahay wuxuuna sheegay inay ayagu maamulaan hawada sare ee iiraan taasi dad badan waxay ula muuqatay war lala soo booday sababtoo maraykanku marka hore wuxuu sheegay dagaalka inuusan qayb ka ahayn axmedow waan la soconaayo iiraan bilowga hore inkastoo ay sheegtay maraykanku inuu gacan siinayo haddana si toosa ugumay eedayn laakiin qirasho ayaa loo arkay oo hawadiina annaga gacanta ku hayno maamulna waxaa halkaasi ka caddaatay baa layidhi maraykanku inuu si dadban dagaalka ugu lug leeyahay laakiin loo joogay sida xaaladdu noqoto intaadan kicin liibanow marka laga shidal qaato hanjabadaha trump maxaa war ah oo laga filan karaa dhanka maraykanka xaaladdu maanta way degan tahay marka la eego jadwalka madaxweynaha dalka maraykanka donald trump maantay kuma jirto inuu hadlo weliba arrimahan uu ka hadlo waxaa la sheegayaa inuu la ballansan yahay dhowr mas-uuliyiin kala duwan iyo howlo kala duwan jadwalkiisa marka la eego wuxuu ka qayb geli doonaa dhaarin la dhaarinayo safiirka cusub ee faransiiska iyo monaco maraykanka u qaabilsan saacad ka bacdina waxa uu la qadayn doonaa baa layidhi taliyaha ciidamada qalabka sida ee dalka bakistan oo halkaas ku soo booqanaya aqalka layidha oval officeka kulankoodaasna saxaafadda wax faahfaahina lagama siinaya waxay ka wada hadlayaan waxaa sidoo kale jirta in uu ka qaybgelayo xaflado iyo munaasabado yaryar oo calan iyo lagu saarayo
aqalka cad agagaarkiisa laakiin xaaladda markasta way isbedeli kartaa baa layidhi ninkaana ma aha nin sida badan lasii saadaalin karo tillaabooyinkiisa iyo ficilada uu qaadayo. liibaan cabdi warsame ayaad dhegaysanayseen oo noga warramaya faahfaahin naga siinaya wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka iiraan iyo israa'iil. haddaba maxaa maraykanka ku riixaya inuu ku biiro dagaalka u dhexeeya iiraan iyo israa'iil? maxayse ka dhigan tahay in maraykanka uu dagaalka lugaha la soo galo? diblomaasiyad se laguma xallin karaa dhibaatada marka la eego halka ay iminka gaartay xaaladdu? su-aalahaasi iyo qaar kaleba waxaan telefoonka ku weydiinay brofesor axmed ismaaciil samatar oo bara jaamacadeed kuna sugan magaalada sadbool ee dalkaasi maraykanka. maraykanka waxaa ku riixaya arrintan bariga dhexe oo aad u qasan oo khaasatan ku soo ururaysa israa'iil iyo falastiiniyiinta. dadkii falastiiniyiinta ee dhulkooga la boobay ee imikana sida xun loo baabiinayo ilaa ghaza iyo west bank. halkaa weeye kuleelka iyo dabku halkuu ka soo baxaya. iiraaniyiintuna dee waa waddanka qura ee si caddaana isu soo taagee u hiilinaya dadka falastiiniyiinta qadiyadooda. marka ujeeddadu waxa weeye gardarrada israa'iil ay la timidna waxa weeye in iiraanna markaa iyadana la majaxaabiyo oo la burburiyo. waa gardarra aan hore loo arag oo waddanka israa'iil dowladdiisa ka timid. maraykankuna dee waa saaxiibkii ugu weynaa ee israa'iil ay leedahay oo sanad walba intaasoo bilyan baa la siiyaa, 3-4 bilyan baa la siiyaa. ciidamadooda hubkooga inteeda badan maraykan baa bixiya. markaa way ishuwan yihiin labadani, maraykan iyo israa'iil. haddii uu maraykanka ku biro dagaalkan israa'iil iyo iiraan, taa maxay ka dhigan tahay? waa su-aal wanaagsan. waxay ka dhigan tahay dee qiyaamihii waa kusoo dhowaanaya bariga dhexe, waayo iiraan dee waddan ciyaara maaha. 82 malyuunoo qof baa ku nool. waa waddan taariikhdiisu ay qadiim tahay oo waddamadan bariga dhexe oo dhan ku yaala ka da'weyn. iyagiyo egypt labadaasa ugu daaweyn taariikh ahaan oo ugu gundheer markaad eegto, iyo waxoogaa ciraaq iyada lafahaanteedu way leedahay taariikhda gunta dheer leh. laakiin labada waaweyne waxa weeye iiraan iyo egypt. waxa nool ee waxoogaa dadaalaya waa iiraan si dadka falastiiniyiinta ee ku nool waddankoogii ee muddaba la baabiinayay ay ugu hiiliyaan intii ay taagtoodu tahay. marka halkaa dagaalka ka dhacaa de wuxuu noqonayaa mid aad iyo aad u qarax badan, waayo waddanka iiraan hub badan bay iyaduna haysataa, dad badan bay haysataa. waa dad aad iyo aad ugu kalsoon taariikhdooda iyo dhaqankooga iyo noloshooda. marka ciyaar noqon mayso. iyagana dhaawac weyn baa loo geysan, iyaguna wax badan bay galaafan sida iila eeg tahay aniga. haddii marka maraykanka uu si toos ah dagaalka u galo isagoo garab siinaya israa'iil, xulafada iiraan ee gobolka sida shiinaha iyo ruushka oo kale, iyaguna ma laga yaabaa in ay si toosa u garab istaagaan iiraan? ma hubo taas oona malayn maayo, waayo ruushkii isagu waa kan ku xayiran dee waddankiisii iyo ukrain dagaalka ka dhexeeya. halkaasuu ku xayiran yahay oo kumayaal qof baa kaga dhintayo. marka maskaxdiisii iyo hubkiisii iyo noloshiisii xaggaasay u jeedaa ukrain sida uga adkaan laha malaha dee xerada uu soo gelin lahaa mar labaad. shiinuhuna iyadoo oo tooda loogu yimaado ma ogeya, u malayn maayo inay dagaal adduunyo oo meelo kale ka dhacaya ciidamo iyo waxa u diraan. waa laga yaabaa dee inay xagga dhaqaalaha wax ka siiyaan, waa laga yaabaa hubka qaarkii inay usoo diraan, laakiin iima muuqata aniga waddankaa shiinuhu inuu doonayo dagaal halkaa ka dhacaya inuu soo gala isaguna oo ciidankiisii iyo au keeno hubkiisa iyo xoolihiisa oo u badheedho. u malayn maayo. lacala marka haddii taa ay dhacdo oo ruushka uu garab siiyo iiraan, annagoo og in uu ku jabay taageeradii suuriya, haatan isagoo dagaalka ukrainna ku jira, maxay ka dhiganaan doontaa? dee u malayn maayo baaban ku yidhi inuu ruushku halkaas soo geliyo. waa laga yaabaa inuu hub iyo waxa u soo diro uu hub soo geliyo, laakiin inuu ciidamadiisa keena iyo quwaddiisa iyo wixiis oo dhan sidii dagaalkii adduunyada labaad inuu halkaa iiraan soo galo uu soo fadhiisto, aniga iilama eka. waa laga yaabaa inaan qaldanahay, laakiin iilama eka. marka dhanbaa iiraan dhanbay maxaa ku raacay ka kelideed ka tahay. wax muslinahoo karti lahoo caawinayaana anigu ma arkayo. dadka muslimka iyo wadamadoodii beri hore ayaa iyagana aad mooday in laga adkaado meel la iska dhigay. marka kelidood inay noqdaan, laakiin dee dad argagixisa iyo caynkaasa yaman iyo dad caynkaasa waxoogaa inay meelaha ka gelgishaan way suurto gelaysaa. laakiin ummad kale oo guuraysa, amba muslin ha noqoto amba dadka bariga dhexe degan ha noqoto oo guuraysa oo iiraan isa soo agtaagta, imika iima muuqato.
dagaalka maalinkii lixaad ayuu galay ma laga yaabaa in xal diblomaasiyadeed wax lagu xaliyo wadee kolleyba dagaal weligiiba socon kari maayo israa'iilna ma qabsan karayso dee iiraan waddanka intaa ballaadhkiisu leegyahay markaad baaxada dhulka eriyada adeegto 280 milyuun oo qof ay ku nool yihiin waddan yaroo israa'iil la yidhaaho maxaan ku dhahay ay ku nool yihiin 8 milyuun oo qof dee ma qabsan karaan oo sidaa uga fog weliba ma qabsan karaan laakiin waxay isku dayey inay madaxa ka gooyaan ingiriiska waxa la yidhaha decapitation inay madaxa ka gooyaan oo dadka madaxda ay ka laayaan marka anugu waxaan qabaa hadduu dhiigu sidaa u daato waxay noqonaysaa mid sii socota oo cadaawadda halkaa taallaa ay sii gabowdo sii socoto israa'iilna marka dambe u noqon mayso dan waayo iyaduna meel walba way ka soo xidhmi kaasi waxa uu ahaa brofesor axmed ismaaciil samatar oo khadka telefoonka u warramayey kowthar haddaba siday shacabka iiraan uga falceliyeen weeraradii ugu dambeeyey ama weerarada israa'iil ay ku hayso dalkaasi iiraan iyadoo ay jirto in shacab badan ay ka qaxayaan magaalooyinka dalkaasi iiraan khasaaro badanna shacabka uu soo gaaraya tan iyo intii dagaalkani uu bilaabmay waryaha b b c da uga soo warrama iiraan salvaash adaldanan ayaa warbixintan noo soo dirtay cusmaan cabdi xasan ayaa soo jeedinaya waa dagaal degdeg ku bilowday oo aan hore qorshaha ugu jirin muuqaallo baraha bulshada lagu wadaagay ayaad ku arkaysaa haweenay isku dayaysaa inay hesho gabbaad ay kaga dhuumato weerarka ku socda caasimadda eeraan ee tehraan baraha bulshadana waxay u oggolaadeen dadka reer eeraan inay soo dhigaan cabsidooda iyo wixii ay arkaan mas-uuliyiintuna waxay ka dalbadeen dadweynaha inaysan duubin weerarada iyo dhibaatada in badanna sidaasi ka duwan ayay samaynayaan waxaa jira muuqaallo ay duubeen gawaari waddada socota waxaa kaloo jira kuwo kale oo ku faraxsan lidka diyaaradaha inkastoo difaaca eeraan uusan u dhigmin kan israa'iil ee ayandon haddana wuxuu awoodaa inuu ka hortago droniska soo gala hawadooda iyadoon laga warqabin laba habeen ma seexan welwel ayaan dareemayaa waxaasoo dhan waxay soo xusuusiyeen carruurnimadayda markaasoo dagaalkii ciraaq iyo iiraan u socday wixii ka dambeeyey waxaan maqli jirnay seeri iyo digniinno horudhac ah balse hadda waxba ma dhicin ra'iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa ugu baaqay dadweynaha eeraan in ay istaagaan oo ay ridaan taliska dalkaas ma yara mucaaradka sugaya arrintaas waxaana ka mid ah reesa bahlaavi oo ah amiirka waddanka uu ka masaafuriyey kacaankii dhashay kii kaasoo si dhow isbahaysi ula ah maamulka israa'iil fursad ayuuna ka arkay in taliska la beddelo waa kan isaga oo ka hadlaya dhibaatada waxay ka timid taliska iyo qaabkiisa xalka keliya ee ugu dambeeya kaas oo ay ka faa'iidayaan iiraan iyo dunida xortaaba waa in taliskan uusan sii joogin ilaa iyo bilowgii waxaan qabnay fikirka ah in xalka ugu dambeeya uu yahay in la beddelo taliska haddana fursaddaas ayaan haysannaa eeraaniyiin badan oo taliska ka hor jeeda uma arkaan israa'iil in ay saaxiib la tahay waa kan qof kaloo arrintaasi qaba oo aan doonayn magaciisa in la sheego taageero uma ahi dowladda iiraan gebi ahaanba balse xaaladdan waxaan dareemayaa in dadku ay midaysan yihiin iskuma dhiibi doonaan israa'iil cadow iyo saaxiib waxay ahaataba israa'iil waxay kaga naxisay reer eeraan xanuunka dagaalka mustaqbalka wadaadada waddanka ka taliya ma ahan mid la hubo dadka reer eeraanna culayska ma ahan mid ka sii degaya cusmaan cabdi xasan aad ayuu mahadsan yahay warbixintaasi nala socodsiinayey weli waxaanu ku guda jirnaa warbixinada la xiriira dagaalka ka socda iiraan ama u dhexeeya iiraan iyo israa'iil haddaba dalkaasi ruushka dhankiisa maalmihii ugu dambeeyey waxa uu ka hadlayey dagaalkani iyo qaabka lagu joojin karo ruushka gaar ahaan madaxweyne putin wuxuu mar soo bandhigay inuu dhexdhexaadiyo labada dhinac si xaaladda loo soo afjaro ruushka ayaa waxaa muuqato in xulafadii ku lahaa bariga dhexe oo markii hore madaxweynihii siiriya bashaar al asad xukunka laga tuuray iminkana iiraan oo xulafo ay yihiin ay xabaddu ka dhacayso maxay tahay cabsida ruushka
ku soo wajahday ama ka soo wajahday dagaalka iiraan iyo israa'iil u dhexeeya su-aashaasi iyo kuwo kale ayaan weydiiyey numcaan cusmaan oo goordhow iyo warramay axmed bederow tan iyo markii israa'iil ay bilowday howlgalka ay u bixisay libaaxii soo baxay mas-uuliyiin badan oo ka tirsan dhinaca ruushka ayaa walaac kala duwan qaba waxaanay xaaladda tan ku tilmaamayaan in ay tahay mid aad looga naxo oo khatarteeda leh warbaahinta ruushka ayaa si weyn waxay u qaadaa dhigaysaa dhinaca kale in faa'iida ay ugu jiri karto moscow waxyaabaha ay qorayaan waxaa ka mid a 3 arrimood oo kuwa ugu waaweyn ah waxay qiimeynayaan sarurkac dhinaca saliidda adduunka ah oo la saadaalinayo in ay kor u kacdo xiisaddan bariga dhexe awgeed ruushka ayaa la leeyahay arrintaasi way saacidi doontaa gaar ahaan marka ay noqoto dhinaca dakhliga uu ka soo xereeyo saliidda caydhiin indhaha caalamkuna waxa ay ka jeesan doonaan ayaa la leeyahay dagaalka ruushka ee hadda ukraine uu ku hayo kiyef waa la ilaaway ayaa ciwaan looga dhigay warbixin wargeyska la yidhaahdo moscow sky uu qoray oo dalkaasi laga leeyahay afkaasina lagu qoray haddiise la aqbalo soo jeedinta kremlinka ee dhexdhexaadinta khilaafka ruushka ayaa faa'iido kale u arka xiisadan bariga dhexe isagoo isu arka inuu markan yahay mid qaadan kara doorka dhexdhexaadiyaha ama nabad samaynta inkastoo uu dagaal ka waday qudhiisu dalka ukraine si kastaba ha ahaatee waxa ay wax walba ku xidhan yihiin ayaa la leeyahay sida uu u dheeraado howlgalka militari ee israa'il taasi waxaa lagu ogaan karaa in ruushku aanu luminin doorkiisa bariga dhexe iyo in kale xiisadda sii hulaaqaysa waa mid xambaarsan khataro halis ah iyo qiimo sare oo suurtagal ugu kacaya ayaa uu yidhi khabiir siyaasadeed oo ruush ah oo la yidhaahdo andrey konatof kaasi oo warbixin ku qoray bogga ganacsiga ee wargeyskaasi maalintii isniinta xaqiiqadu bederow waxa ay tahay in ruushku uu awoodi waayey inuu ka hortago weerar ballaadhan oo israa'iil ay ku qaaday dal 5 bilood ka hor uu la saxeixday heshiis iskaashi oo dhinaca istaraatiijiyadda ah sida wargeyskaasi lagu yidhi sida iska cad moscow diyaar uma aha wax dhaafsiisan hadallo siyaasadeed oo ah in ay cambaarayso israa'iil diyaarna uma aha in iraan xilligan kaalmo militari oo muuqata ay siiso ayaa hadalkiisa khabiirkaasi uu raaciyey moscow kuma qasbana in ay difaacdo tehraan hase yeeshee moscow waa ay hadashay qudheedu wargeyskuna waxa uu leeyahay waraysi ay la yeelatay wakaaladda wararka ee la yidhaahdo ria novist wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi sergey lafrof ayaa waxa uu sheegay in heshiisku uu yahay mid fiiro gaara u yeelanaya xoojinta isuduwidda danaha nabadda iyo amniga ee heer gobol iyo weliba midda caalamiga ah iyo weliba rabitaanka moscow iyo tehraan ee iskaashiga dhow ee dhinaca amniga iyo difaaca in shiinuhu uu ciidan u diro dagaalkani ama xiisadan ka soo cusbanaatay bariga dhexe ayaa khubarada qaybtood waxa ay ku doodayaan in xilligan ay tahay mid aan dhici karin marka laga hadlayo bariga dhexe ama gobolka bariga dhexe ruushka 10 sano ugu dambeysay galaangal xoogan ayuu ku lahaa wuxuu saaxiib la ahaa suuriya oo bishaar al asad waxaa la sheegay in isaga xukunka uu ku hayay oo uu ka guulaystay mucaaradkii bishaar al asad waan ognahay meeshuu ka baxay imikana iiraan oo xulfo ay yihiin ayuu dagaal ka socdaa arrintaasi istaraatiiji ahaan maxay u dhimi kartaa ay leeyihiin khubarada 6 bilood axmed bederow lasoo dhaafay moscow waxa ay lumisay hal saaxiib oo muhiim ahaa oo bariga dhexe ay ku lahayd waana sida aad sheegtay bishaar al asad bishaar hogaamiyihii waddankaasi maamulayay muddada aadka u dheer bishii disembar ee sanadkii lasoo dhaafay ayaa xukunka laga caydhiyey waxaana magangeliyo u fidiyey ruushka rajada laga qabo isbeddelka nidaamka iiraan fikirka ah in uu lumiyo saaxiib kale oo istaraatiiji ah oo gobolka ku lahaa ayayana waxay noqon doontaa walaac weyn oo moscow ay qabto ayaa ay khubaradu rajaynayaan wargeyskaasi afka ruushanka ku soo baxa oo arrimahan ka faalloonaya waxa uu talaadadii warbixintiisa ku soo gebagabeeyey siyaasadda caalamka hadda iyo weliba isbedelada waaweyn ee dhacaya oo si toos ah ama si dadbanba waxay u saameynayaan ayaa ay leeyihiin nolosha dadweynaha ku dhaqan ee waddankaasi valadimir putin ayaa isagana waxaa la rajaynayaa toddobaadkan intiisa badan inuu ku qaadan doono magaalada la yidhaahdo st bersburg halkaasi oo kaga qaybgelayo shir sanadla ah oo arrimaha dhaqaalaha ee caalamiga ah shirka ayaa haddaba sanadihii lasoo dhaafay madax sarsare oo shirkadaha waaweyn oo reer galbeedka u badan aanay ka qaybgelin ama ay diideen sababo la xidhiidha duulaanka uu ruushku ku qaaday dalka ukraine si kastaba ha ahaatee qabanqaabiyaasha kulankaasi caalamiga ah ee dhaqaalaha ayaa waxay ku andacoonayaan in sanadkan ay ka soo qaybgeli doonaan wakiilo ka kala socda in ka badan 140 dal bederow ugu dambeyntii mas-uuliyiinta ruushka ayaa dhacdada tan waxaa wariyaha b b c da arrimaha dhaqaalaha uga faallooda waa tifaftiraha b b c da ee arrimaha dhaqaalaha oo la yidhaahdo
steve rosenberg waxau ku tilmaamayaa in shirkani keliya uu noqonayo madal dhaqaale balse xiisadda juqraafi siyaasadeed aanu waxba ka tarayn. iminkana wararka laga helaya khaza waxa ay sheegayaan in meydad badan la helay kadib howlgallo ciidamada israa'iil ay ka sameeyeen marinka khaza. xasan sheekh cumar ayaa imika la fadhiya. xasan axmedow, wasaaradda caafimaadka ee kasa ay maamusho xamaas ayaa waxa ay soo sheegtay ama ay warisay in isbitaalada kase ku yaalla qaarkood la gaarsiiyey meydadka dad gaaraya 144 qof 24 saacadood ee lasoo dhaafay, iyadoo ay sii socdaan baa la leeyahay weerarada ciidamada israa'iil ay wadaan. waxaa sidoo kale isbitaalada la dhigay dad gaaraya 560 qof, waa dad ka badan oo dhaawac ah. howlgalladaasi waxay dhaceen maalmihii lasoo dhaafay, ilaa haddana waa ay socdaan laleeyahay oo ciidamada israa'iil way sii wadaan. dhakhaatiirta iyo hay-adda gurmadka degdega ee halkaasi waxa ay sheegeen in ciidanka israa'iil ay bartamaha kase ku dileen 11 qof oo falastiiniyiin ah oo sugaya gargaar ay bixinayeen hay-adaha qaramada midoobey ee halkaasi ku sugan. dhacdadaasi waxa ay noqotay dhacdadii ugu dambeysay dhacdooyin maalmaha insixigay oo gargaar dad sugayay la beegsanayey. ciidamada militariga israa'iil waxay sheegeen in halkaasi ka wadaan howlgallo lagu burburinayo, waa sida iyagu ay ku sheegeen bayaan ay soo saareen awoodda militari ee xamaas. madaxa hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga ee falastiiniyiinta Philippe Lazzarini waxa uu sheegay in wax caadiba ay iska noqotay in la toogto oo la dilo dadka rayadka ee gaajaysan ee dhibaataysan ee halkaa door bidaya inay ka helaan ama ku xoomaya gawaarida gargaarka sida ee hay-adaha qaramada midoobey.